السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته kusoo dhawaada channelka Sharm Sheikh hoyga teknolojiyada iyo design maanta waxaan ka hadli doonaa cryptocurrency iyo revolution financial world macnaheeduna waa in la sameeyo bedel weyn oo gabi ahaanba ka duwan nidaamyada dhaqaalaha hore u jiray iyadoo la adeegsanayo teknolojiyad cusub sida cryptocurrency blockchain kusoo dhawaada barteena YouTube Sharm Sheikh waxaan bartaan kusoo gudbinaa casharo faa'iido u leh bulshada Soomaaliyeed inayna aqoon casri ah oo ku saabsan cryptocurrency iyo teknolojiyada iyo design-ka. Waa maxay cryptocurrency waa lacag digital ah oo aan lahayn qaab la taaban karo kuna shaqeysa internet iyadoo aan loo baahnayn bangiyo ama dowlad dhexe waxaana lagu kaydiyaa blockchain technology sir ah oo la ilaaliyo dhammaan macaamilada. Tusaale haddaan si fiican aan u qeexno cryptocurrency waa lacag la sameeyay si ay u noqoto mid ammaan ah loo gudbin karo si fudud isla markaana la xakameyn karin. Lacagtana waxaa lagu isticmaalaa internetka waxaa laga heli karaa qalab digital ah sida mobilka, computerka ama tabletka. Cryptocurrency waxay ku shaqeysaa teknolojiyad la yiraahdo blockchain waa diiwaan sir ah oo u keydiya dhammaan macaamilada la sameeyay. Macluumaadkaas uma baahna in uu keydiyo bangi ama hay'ad dhexe. Habka wax kala iibsiga soo yaala habka wax kala iibsiga hadurti waxaa la transaction process waa hab lacag dirista iyo helista lagu sameeyo cryptocurrency. Marka aad rabto inaad lacag u dirto qof kale adigoo isticmaalaya Bitcoin oo nooc kale oo crypto ah, qofka diray wuxuu u baahan yahay inuu helo address qofka uu dirayo kaasoo ah lambar sida BC-ga amba OX kaasoo ah lambar BC amba OX. Markii uu address-ka helo wuxuu doortaa lacagta uu rabo inuu diro inta uu rabo inuu diro. Si loo xaqiijiyo diristaas waxaa loo baahan yahay private key taasoo ah furaha sirta ah ee muujinaya inuu isagu leeyahay lacagta. Marka lacagta la xaqiijiyo waxay u gudbeysaa blockchain oo ah meel furan oo diiwaangelin ah. Halkaas waxaa ku sugnaada confirmation-ka hubino badan oo ka timaada computer notice-ka la xaqiijiyay in macaamilka sax yahay. Marka la xaqiijiyo lacagta waxaa la helayaa qofkii loo diray. Halkani waa ammaan bangi la'aan ah wuxuuna ku ogolaanayaa inaad lacag dirto meel kasta oo dunida ah si toos ah 24 saac. Khidmadaha wax isdhaafsiga hoose cryptocurrency waxay bixisaa qarashaad macaamil aad u hooseeya markii la barbar dhigo bangiyada ama adeegyada lacag dirista caadiga ah sida Western Union iyo PayPal ama xawaaladaha. Waqtiyada wax kala iibsiga degdega ah waxaa loola jeedaa sida dhaqsiyo badan ee lacagta crypto loogu diro qof ilaa qof kale iyadoo aysan jirin caqabado waqtiyeed ama bangiyo xiran ama fasaxyo qarsoodi iyo amni. Cryptocurrency waxay bixisaa heer qarsoodi iyo amni sare marka laga hadlayo lacag dirista, kaydinta iyo la socodka hantida digitalka ah. Waxaa lagu darayaa teknolojiyad blockchain ah taasoo aan sahlaneyn in la jabsado ama lagu farageliyo. Khatarta iyo caqabadaha isbedelka suuqyada waa isbedel weyn ee qiimaha crypto-ga uu leeyahay waqti gaaban gudaheeda. Tusaale ahaan Bitcoin wuxuu maanta noqon karaa 30,000 laakiin berrito wuxuu noqon karaa 28,000 amba 32,000. taasina waa isbedelka suuqa qiimo kor u kacaya ama hoos u dhacaya si lama filaan ah. Hubin la'aan sharciyeed waxaa la micnaheedu hadurtii hubin la'aanta sharciyeed waxaa la micno ah in si rasmi ah loo ogeyn ama la hubin sharci saxda ah ee dowladda ku shaqeeya crypto-ga. Major cryptocurrencies waa lacag digital ah ee ugu isticmaalka badan qiimo sare leh dad badan ku kalsoon yihiin. Waxaa lagu kala iibsadaa suuqyada crypto-ga waxaana inta badan adeegsada shirkado maalgashayaal iyo adeegyo online ah. Maalgelinta lacagta loo yaqaano cryptocurrency waa cilmi baarista iyo waxbarashada research and education. Waxay la micno tahay inaad isbarayso aad xog ururinayso si aad u fahamto sida lacagaha crypto u shaqeeyaan suuqyadoodana u socoto khatarta jirta iyo si aad faa'iido u heli kartid. Diversify your portfolio macnaheedu waa ha dhigin dhammaan lacagtaada hal meel hal nooc oo crypto ah. Tusaale u qayb lacagtaada meelo kala duwan si haddii aad mid u khasaarto mid kale faa'iido oo aad u hesho. Fahamka khatarta jirta waa understanding the risk involved macnaheedu waa inaad si buuxda u fahanto halista iyo khatarta la socoto markii aad gasho ganacsiga ama maalgashiga ku saabsan cryptocurrency si aad uga fogaato khasaaro weyn. Midka xiga waa mustaqbalka cryptocurrency future of cryptocurrency
waxaa laga wadaa sidee ayuu u ekaan doonaa lacagaha digitalka sida Bitcoin-ka iyo sida sanadaha soo socda ma sii kordhi doonaan ma noqon doonaan lacag rasmi ah mise waa la xakameyn doonaa mustaqbalka. Gunaanadkan wuxuu noqon doonaa cryptocurrency waa tiknoolajiyad cusub oo fursado badan leh balse u baahan inaad barato oo aad taxaddar samayso. Waa inaad mar walba ka digtoonaataa qiyaamooyinka waxaadna u baahan tahay inaad faham guud aad ka haysato sida ay u shaqeyso ka hor inta aadan maalgashan. Sidaas iyo nabadgelyo.